السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقدقة وهذا صوت دعي عديمنا وطن ما إكران تهليل أيام ميد كيدي لهلي عاوة لفيه هذا الله هلي ميل وليبا أنا لقى مليسنين لقى صوصاري كرتون خوف لدح قليي إسلا مركانا قد لسي قليي لفيه سي أيام لهلي أو قف دمر أو دينا عكرنا أي دينا عيالان مركا لقى صوتو إن مرعد لدح قليي مراوينك دمرك أي حرتان أو سوق جرى جلباب إيه سيدو كلا دروع كلا haddaba ma ikraan tahliila saraakiishu waxay sheegeen inay shaki weyn ka qabaan sax ahaanshaha arrintaas oo ay sheegeen inay aaminsan yihiin in qofkan uusan qof kale noqon karin oo ikraan tahliil ay tahay waliba meesha laga helay waa meelihii loo maleysanayay in gabadhaasi nafta lagu dhaafiyay ama loo qaaday duleedka magaalada muqdisho waa meel inta badan tuhun badan uu ka taagnaa in markii gaariga gabadhaasi la saaray in loo dhigay oo nafta lagu dhaafiyay garas baaley meel cidla ciirsiya oo xaafado badan aanay ku oolin guri jeengad ku wareegsan oo laakiin aan la deganayn dhaxdiisa rafaadka ka muuqda ayaabaysid kartoonkan qofkan ku dhex jira oo waqti dheer inuu ku jiray ay muujinayso godna la sii geliyay oo guriga meel kamid ah ayaa la soo helay waxaana laamaha amnigu ay noo sheegeen inay baaritaan culus bilaabeen wali baaritaan caafimaad oo xaqiijiyay sida waxa loo yaqaan forensiga baaritaanada faraha ama dhicaanada ama waxyaabahan oo kale ma jiro oo hadda ayaa la ogaaday laakiin annaga xigashada waxaan dul taaganahay laamaha amniga waxa ayna iyagu qiyaastoodii ay soo gaarsiiyeen xog ahaan sidaan ku helnay in haweeneydan ay aaminsan yihiin macne ilaa xad inaanay ahayn qof dhawaantan nafta la dhaafiyay isla markaana ay tahay qof kiiskeeda si aad ah oo xeelad ay ka muuqato loo qariyay oo ikraan tahliilna ay noqon karto marka loo fiiriyo marka kiiskan ayay sheegeen kartoon qofka la dhex geliyay sidoo kale la dhex geliyay marada meedka lagu daboolo ee cad karfanta loo yaqaano isla markaana dharkeedii qofkaasi aanan la sii qaadin meesha uu yaalay waliba jalbaab wax ay ku tilmaameen sawirada aan helnayna ay ka muuqdaan oo blue mari ah ama blue mari xigeen ayaa meeshii laga soo saaray sidee lagu ogaaday waa su'aal kale oo muhiim ah oo dadku ay isweydiinayaan waxa la inoo sheegay in qof meesha uu iskaga leexday qofkaas oo ilaa hadda waxa uu yahay aan la ogeyn qofkaas oo meeshan gudaha ugu galay inuu ahaa qof dib jir ah oo kaligii socda iyo in dad meesha marayay ay ur iyo wax dareemeen ayaan ilaa hadda kala cadeyn hase yeeshee ur inaysan ahayn waxaa laga tusaale qaadan karaa lafaha la soo saaray waa qof mar hore meesha ku baaba'ay oo wax cusub ayaa uri kara dabcan marka waxaan wax hadda la ogaaday oo macnihii lagu ogaaday dhinaca urta uma qaabicka sida aawadeed waxay la falgalay ama u eg tahay qof socota ah oo meeshan xiran waa guri waliba xirnaa oo cid aanay joogin ilaa hadda xog